deeq raashina oo ay la soo baxeen dad muxsiniin oo ku nool dalka dibadiisa ayaa maanta loo qaybiyay 720 qoys oo kamid ah dadka danyarta ah ee ku nool gudaha magaalada Burco. Deeqdan raashinka ah ee la soo gaarsiiyay qoysaska danyarta ayaa waxa ka warbixiyay Suldaan Axmed Jaamac iyo sidoo kale Arda Cabdi Aadan oo iyagu ka wakiilaha dadka muxsiniinta ah ee la soo baxay deeqdan loo qaybiyay qoysaska danyarta. hawshii walaal Maxamed Saardar Yuusal sadaqadii uu la soo baxay ilaahay maanta noo soo gabagabeeyay oo aan ku guulaysanay inaan dadkii masaakiinta muxsiniinta aan u qaybino intii ku noolad magaalada Burco maxay toolaan awoodeen inay maxay toolaan raashinka billaha iska bixiyaan maanta ilaahay noo soo gabagabeeyay aan u soo maxay toolaan dhameynay marka waa 720 qoys oo maxay toolay ka kooban maxay tolay bariis sokor daqiiq iyo saliid iyo timir marka ilaahay si wanaagsan buu nagu soo gabagabeeyay waxaan ugu mahad celinayaa halkan walaalkeen Maxamed Saardar Yuusal oo ah muxsinka la baxay deeqdan inuu soo gaarsiiyo walaalahooda muslimiinta ah ku nool magaalada Burco marka aad baan ugu mahad celinayaa ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waa mar walba u ducaynaynaa waxaan kala halkan ugu mahad celinayaa Maxamed Baasha Jaamac isna وصو كشيء وسنو كشيء أرد عبد آذن ورا سيدي حيد بنتقد وقيبني كل سوران تدي يفليو يدي إن شاء الله وذاك دونتها. يا محمد ساردة يا محمد باش جامع نمان كسودي صدقة سو كشيء ولا لها إسلام كتكرده وندين هذا لنا إن شاء الله بدون الله كريم إلهي وحندين ودينا صدقة سود بتوين سو قاعدي وأنا نقع قيبنا إلهي يوم قدر النساء كحسنا وقدر إنك سو بحسبي مساكين توكاني raashinka maxaan ku dhahdaa waxyaabo fara badan horena uu soo dhiibay oo soo gaaray waan qaybinay maantana insha Allah bidilaahi kariina waxaan ku weydiinaa adiga iyo waalidka iyo walaalaha iyo islaamkaba in ilaahay miisaanka xasanaadka kuugu daro annagana kuwana sadaqad jaarinana uu kaaga dhigo ayaan waan kuugu daayeynaa insha Allah bidilaahi kariin waxaan kula qaybinay Suldaan Axmed Jaamac iyo Ardo Cabdi Aadan deeqdii ay qaybinayeen ay u qaybinayeen dadka masaakiinta ah waxaan marxaad ka nahay inaan halkan kula qaybinay si cadaalad wanaagsan oo qaybiyaan iyaga iyo dadkii soo dhiibay Ilaahay waxaan uga qabraynaa in miisaadka xasanaadka ugu daro insha Allah billahi taala. qaar ka mid ah dadkii iyaguna deeqda raashinka ah ka faa'iideystay oo iyaguna halkaas warbaahinta kula hadlay ayaa u mahad celiyay dadka soo gaarsiiyay deeqdan raashinka ah. marka waraysa Ilaahay waa mahadle waxa ku xiga deeqdan dadkii noo soo qaybiyay la soo gaarsiiyay la siiyay وانا كغدومني محسنينتا لا soo baxday sadaqada waana soo gaadhay ilaahay iyagana miisaanka xasanaadka ha ugu daro